xaflad dhiirigelina oo loo qabtay arday ku guuleysatay tartan aqooneed ka socday hoolka sare ee dugsiga Al-Faaruq Secondary and Primary School ee magaalada Burco ayaa maanta ka qabsoontay isla dugsiga gudihiisa. Ujeedada tartankan ayaa ahayd sidii loo ogaan lahaa heerka aqooneed ee ardayda laguna dhiirigeliyay sidii guul ay uga soo hoyn lahaayeen tartanada. haddaba tartankan oo socday muddo ku dhow bil ayaa guusha ku raacday guruub kamid ah fasalka form 4ka waxaana ugu horeynba munaasabadaasi ka hadlay injineer Faarax Yaasin oo ka magac dheer Faarax Khadad oo kamid ah macallimiinta ka howlgasha dugsiga Al-Faaruq Secondary and Primary School ee magaalada Burco ahaana shakhsiga garsoorka ka ahaa intii tartanku socday kana warramay carqaladihii kala duwanaaye ka hor yimi intii tartanku socday waxaana hadaladiisii kamid ahayd hal tartan meel wada qabata oo cadaalad ah oo aanay hadhow wax weyn iyaguna wax ka sheegan in ardaydu wax qaybaan oo iyagoo tartamaya oo aan la qasbin ficil xaggooda ka yimay wax ku qaybaan qodob saddexaad diin ay ardaydu ogaadaan oo ay bartaan xakam in wax la xukumo in wax loo diido in wax la siiyo in wax weeye cid ka badiyaan in garadhax marto dad وقدم لو باهي waxa ka soo baxaya de fan tacaamul maca naas sida qofka bulshada la dhaqma karo ayaa ka soo baxay ciyaaraha aad loo xiiseeyay oo dhalinyarada oo taqaana waxa jirta ciyaar ay wada ciyaaraan kooxda iyagu groupka wada oo alamiteen la yiraahdo marka baash horta tartanka alamiteen waxaan u sii alamiiteena inaynu iskuulada weyn iyo dalka iyo gobolka dhan aynu tartan la galo intaas aynu soo almiteen. sidoo kale waxa munaasabadaasi ka hadlay ardayda qaybaheeda kala duwan isla markaana isu hambaliyeeyay gabagabadii munaasabadana waxa hadal ka soo xiray maamulaha dugsiga Al-Faaruq Secondary and Primary School ee magaalada Burco mudane Xirsi Xaaji Daahir waxaana hadaladiisii kamid ahaa wax micnaa u sameynaysa ma jirto waayo guuli waa maxay wata lagaga dambeeyo Soomaa guushu taa joogtid maaha markaas waxay wata lagaga dambeeyo ugu dambeyntiina halkaas waxa shahaado sharaf lagu gudoonsiiyay ardaydii ku guuleysatay tartankaasi Xamse Cabdiraxmaan Cabdullaahi Xamse Google meediyaha caalamiga Al-Faaruq News Burco.